nin acraabi oo magaalada madiina duleedka iga deganaa ayaa xoolihiisii neef ka mid uu dhurwaa ka dafay yey baa ka dafay leanna markaasuu ka soo ritay baa la yidhi yeygii baa intuu soo eegay buu ku yidhi rasiq ilaahay afka uu ii soo geliyey in aadanoo maxaad iiga ridatay buu ku yidhi waa dhurwaa oo kale matalan yey rasiqa ilaahay afka uu ii soo geliyey in aadanow maxaad iiga ridatay markaasuu ninkii dhagaha qabsado wuxuu yidhi waa cajabaah addibu yatakallamu kalaama alins ma yey baa luqada bini aadanka igula hadlaaya yeygii baa jawaabo wuxuu ku yidhi waxaa aniga iga cajab badan baan kuu sheegi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo magaalada madiina soo gaadhay oo warkii samada ilaahay u soo dhiibay bini aadanka uga warramaya oo dadku ay la yaaban yihiin taasaa iga yaab badanee orado madiine teg buu ku yidhi dhurwaa yaa ka hadliyane allahu rabbulcaalamiin saxaabigii allaha raalli ka noqday xoolihiisii intuu isku urursaday ayuu soo kaxeeyoo magaaladii madiinuu soo geliyey leanna isla markiiba wuxuu u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo masaajidkiisii dhex taagan oo nebigeebii uu tegey ninkii acraabigu yidhi yaa rasuulallah arrinkaasaan arkay markaa buu nebigu saxaabada u yeedhay assalaatu jaamica buu nebigu yidhi assalaatu jaamica ereygaa hadday saxaabadu ay maqlaan waxay ogaan jireen in baahi diineed masjidka nebiga ay taallo oo nebi maxamed xaggiisa baaq inuu ka yimidda bay ogaan jireen leanna nin walba markaa shaqada u haya markaa uu dhigaayey ka reerka jooga guriga uu ka soo baxaayey ka meheradda jooga meheradda uu ka soo dhaqaaqaayey ka beerta falanaya beerta uu joojinayey ka dukaanka jooga dukaanka uu xidhayey haddii ay maqlaan assalaatu jaamica ereygaa haddii ay maqlaan waa iclaan weeyaan bimacnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inii baaqaya muslimiinee soo ajiiba hadday saxaabadu ay maqlaan nin walba shaqada uu markaa gacanta uu ku hayo halkaa intuu dhiguu masjidka nebiga iman jiray calayhi salaatu wasalaam waa taa iminka innaka ijtimaaca laynoogu yeedhay weeyaan kulan diineed baa jira macneegu waa maxay baaq diineed baa jira soo ajiiba weeyaan yaa macshara almuslimiin markaz alhidaaya jamaaco keliya maaha waxaa ku kulmaysa ummaddoo dhan baa loogu baaqa ijtimaaca inay ka soo qayb gasho oo waxaa la leeyahay war kulan diineed baa jira nuqsaan diineed baa caalamka taalle nuqsaan adduunya maanta adduunyada ma taallo nuqsaan adduunyo adduunka ma taallo bal adduunyadu maanta way biirtay nolosha bini aadamkuna cidhiidhi bay sii gelaysaa haddaan doonayna inay bini aadamku cidhiidhiga ay ka baxaan waa rujuuc ila diin waa in diinta loo soo noqdaa markaa nuqsaan diineed baa dalkeenna iyo caalamkaba taalle nuqsaantaa diineed saan u kebi lahayn ayaa laynoogu baaqay kulankaa diineed ka soo qayb gala zamankii nebiga waxaa loon jiray assalaatu jaamica hadday saxaabadu ereygaa ay maqlaan waxay ogaan jireen ay garan jireen in masjidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka jiro maaragtaane baahi diineed iyo dalab diineed shaqada nin walba uu hayo intuu dhulka dhigo ayuu masjidka nebiga iman jiray calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam markii masjidka nebiga lasoo buux dhaafiyey sidaa innaguba hadda aan u soo camirnay masjidka nebiga saxaabadu u soo camireen laakiin innakiyo saxaabadu waxaan ku kala duwannahay aadaabta maxaan ku kala duwannahay war maxaan ku kala duwannahay aadaab salaaddii fajar buu nebigu tujiyey jamaca fii xajati alwadaac mambarkuu fuulay khudbad buu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebiga lagu yidhi yaa rasuula allah salaaddii duhur baa la gaadhay xilligeedii uu ka daadegay nebigu calayhi salaatu wasalaam duhurkii oo qasriuu nebigu saxaabada tujiyey haddana mambarkuu dib ugu noqday casarkii baa gaadhay baa nebiga lagu yidhi uu ka daadego 2 ragco casarkii buu nebigu tujiyey haddana maqribkii baa gaadhay baa nebiga lagu yidhi salaaddii maqrib buu nebigu khudbaddu subaxdii bilaabay ku joojiyey mayna soomaneen asxaabta rasuulka biyana may dalban fadhigay fadhiyena may bedelin baa layidhi khudbadda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu fajarkii bilaabay ilaa iyo maqribkii saxaabadu waxay yidhaahdeen wixii tegayna nebigu waa ka warramay waxa joogana uu ka warramay waxa soo socdana nebigu uu ka warramay ninkii noogu qalbiga fiicnaaba noogu cilmi batay bay yidhahdeen asxaabtu maalinkaas innaku aalaad baan sidanaa oo iminka wax ku duubannaa saxaabadu aaladday haysteen tay ahayd bal sheega war bal sheega dee qalbiga iyaku ku duubanayaan wax qalbiga iyo aadaab labadaas bay lahaayeen qalbi soo jeeda
iyo aadaab iyo ixtiraam bay ku fadhiisanayeen markay nebiga hor fadhiyaan. salaadii maqrib fajar markuu nebigu mambarka fuula maqrib buu ka daadegay. hadalladu ku soo gebagabeeyena waxaa ka mid ahayd laa nebiya bacdii walaa ummata bacdikum, aniga nebi inigama dambayn doono, ininkana ummad inigama dambayn doonta buu nebigu yidhi. kiina xaadirka ilo joogow kiina maqan gaadhsii buu yidhi. bal fiirso, kiina xaadirka halkaa joogow ka maqan gaadhsii. lidaalika saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin assalaatu jaamicatun haddii ay maqlaan, maaha ereygaasi aadaan maaha, aadaanka markii dambe siiqadda aadaanka ilaahay ummadda u furay, laakiin mar kastoo baahi diineedu nebigu saxaabada uu raba inuu la kulmaba waxau odhan jiray ereygaa dhahada buu odhan jiray assalaatu jaamica. markaasaa masjidka la soo buux dhaafin jiray. markaa buu nebigu u yeedhay ninkii carabigii, kaalay waryaa buuhi, waxaad aragtay halkan joogso ummadda u sheeg buu ka yidhi. waa ninkii carabigii ee dhurwaagu la hadlay. ku salliya rasuulka. توجهوا أحباب. markaasuu uga warran yidhi waxaad la kulantay u sheeg asxaabta. xayawaan hadlay oo xaq ku hadlay yaa ka hadliyey allahu rabb alcaalamiin jala jalaaluh. marka diintaa qaaliya, shaygii diintaa cilaaqa la yeeshana diintu qiime u yeelaysaa. waana waxa keliya ilaahay bini aadamka ku qiimaynaya ogow diintu. ina akramakum cinda allaahi atqaakum. diintaa qiimo leh.